بسم الله الرحمن الرحيم أحمده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. I am here to give thanks to our area MP Farah Muallim and our brothers who cooperated with us with this humanitarian food for the orphanage center, the Dab institution. I sell Findikaya Primary School orphanage based in the Dab. We have received food from our area MP and our brothers from the Kingdom of Qatar, Mohammed bin Hassan Al Thani, and our former Sheikh Abdul Hakim, Sheikh Ali Sufi, all based in Qatar. We are telling them we are from Dadaab and we have our community elders here and our ulama here and our youth here. We are telling them to welcome and we are giving them a very big thanks and appreciate what they have given us. Jazahumullahu khair al-jaza. Bismillah. waxaan ma artay meejan mahad weyn badan ugu celinaynaa MPgeena aan ka soo dooranay Dadaab district iyo dad ma arta deeqiyaal ah oo ma artay ay kana la bixinayeen waxa kamid ahaa ma arta Mohammed bin Hassan iyo Sheikh Abdul Hakim Sheikh Ali Sufi nimanka ay ka deeqiyaalka ah ee ilmaha agoonta ah ee ka go'day ma aragtay dhaqaalihii ka go'ay na garab qabteen si aad baan ugu mahadinaynaa waxaana ka codsanaynaa in ma aragtay agoonta nala qabtaan waad garanaysaan diinta islaamka waxay saartay qaaya aad u weyn nabiga kaleey salaam wuxuu leeyahay ninka agoonka daryeelo ani asaga waxaan isku nahay ka haatayni labadiisa faroodba ma artaa saa u sime marka waa ajir aad u weyn oo la heli karin sidoo kale waxaan mahad u celinaynaa MCgeena laga soo doortay Mohammed Abdi Farah oo ma aragtay laga soo doortay magaalada Dadaab oo asagana agaasimaha iyo ma aragtay isku xirka iyo ma aragtay qalqaalahaas u taagnaa mahad aad u weyn baan ugu celinaynaa waxaan leenahay madaxdeena iyo dadka dhaqaale celinta ay ma aragtay dhaqaalaha nasiibay intaba hawsha aan soo gaarsiiseen ee ugu tabarucdeen ilmaha agoonta ilaa subhanahu wa ta'ala Allah inaga ajirsiyo miisaankiina xasanaadkana Allah saaro waxaan inaga codsanaynaa inaad ma aragtay dadaal la raab aad noo sameysaan sifa ma aragtay agoonta aan gacan qaban jazakumullahu khayr ani waxaan nahay odayga Dadaab Xasan Faarax Yuusuf Ali Radaa waxaan nahay odayaalka Dadaab maanta shirkan naloo soo qaaday naloo keenay farax weyn baan horta meesha kala kulannay waxa faraxa keenay Ilaahay baa keenay ninka aan dooranay MPga anaga Dadaab Faarax Muallim Mohammed hadda asaga iska leh waxa Ilaahay baa iska leh laakiin hadda ninka maanta iska leh asaga yaa waay iyo deeqiyaasha kale Mohammed Hassan Al-Thani iyo walaalkii Sheikh Abdul Hakim Sheikh Ali Sufi يا دقدنا سو غارسين دقدنا سو غارسين وين سو غارتay gacantan ku haynaa mahad bay mudan mahad baan u celinay ilaahay waxaan ka baranay meeje ka soo bixin wax ka qar badan in alla u geliyo inayna deeqda ayada ayna naga joojino in nala wadaan oo agoommahaas deeqday u bilaabeen ku wadaan ilaa wax naga qaabilo kala aan ka helno yaan uga baahanahay annaga mahad baan leenahay mahad baan idin soo celinay khayr ma idin rajaynaa sida ka warqaba waxaan halkan ka salaamayaa MPga area Farah Muallim iyo nimanka culimada ah ee deeq bixiyaasha ah Qatar Mohammed bin Hassan Al-Thani يا شيخ النجا Sheikh Abdul Hakim Sheikh Ali Sufi raashinkii ay noo soo direen wuu na soo gaaray bur bariis sokor saliid caana iyo wixii la mid ah sugayo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ilaa county reebka anaga Mohammed Abdi Farah oo ku magac dheer Abbo oo asagana aad qalqaalaha iyo qayb weyn ka qaatay xiriirka uu nagu soo gaartay ka shaqeeyay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ilaahayna ajir ha ka siiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله.
mahad ilaahay bay u sugnaatay marka koobaad ilaahay baan ku mahad celinaynaa meeshan ka hadlayna waa Dhadhaab iyo xarunta agoonta ee ugu weyneyd ee North Eastern baan joognaa madax badan baana meesha taagan mahadda ilaahay bay u sugnaatay waxaan maanta aad ugu faraxsanahay raashinkii ay noo soo direen MB-ga Dhadhaab Faarax Macallin iyo Sheekh Mohammed bin Hassan Al-Thani iyo Sheekh Abdulhakim Sheekh Ali Suufi raashinka uu soo gaaray waxaan leenahay meeshaad la rabteen buu yimid waa idinka gudoonay ilaahay jannada ha idin gudoonsiiyo dambigiina Allah ha dhaafo xaruurta agoonta ah ilaahay baad wax u dhiibateen ilaah wuu idin hayaaye annaguna abaalkeedan idin hadnaa oo ah waan idin ducaa Allah idin barakeey waxa kale oo ducaynaynaa Abdi Baasid oo arintaas isagana guri walba u galay waxaan leenahay Allah barakeeyo ilaahay ha cafiyo waalidkii Allah u naxariiso waxa kale oo ducaynaynaa duqeyda iyagana aad arinta uga murugsana Allah barakeeyo wa sallallahu alayhi wa sallam baraka ala nabi إن شاء الله أختم هذه الكلمة مع كل الشكر إن شاء الله تعالى أشكر على عضو البرلمان فارح معلم وكذلك سماحة سمو الملك محمد بن حسن الثاني في قطر مع شيخنا العلامة شيخ عبد الحكيم شيخ علي السوفي جزاهم الله خير الجزاء المساعدة والمعاونة الإغاثية التي أرسلتمونا إلينا قد وصلت جزاكم الله خير الجزاء وربنا يسقيكم من جنته بإذن الله الكريم ويجعل في ميزان حسناتكم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته